ciidamada Tigray ayaa si nabad ah ula wareegay magaalooyin muhiim ah waxaana kamid ah magaalooyinka ay la wareegeen magaalada Adwa, Shira iyo Aksum. Xoogagga Tigray oo horumar ballaaran ka sameeyay dagaaladii toddobaadyadii Tigray ay kula jireen dowladda dhexe ayaa maanta magaalooyin badan la wareegay, inkastoo ay jiraan magaalooyin aysan ka dhicin wax dagaalo ay si nabadgelyo ah ula wareegeen. Shacabka ayaa si weyn u soo dhaweeyay xoogagga TPLF. Militariga Itoobiya ayaa isaga baxay magaalada Aksum waxaana hadda si buuxda ula wareegay xoogagga Tigray. Kumanaan ka mid noqon doona ciidamada militariga ayaa maanta loogu soo xiray tababar xeerada tababarada ee Buur Shaliqo, walow ciidamadu ay kala kulmeen dagaaladii muddada 6 bilood ah socday waqooyiga dalka Itoobiya khasaaro baaxad leh. Haddana waxaa muuqata in la xoojinayo ayna jiraan tababaro la siinayo dhalinyarada ku biiraysa ciidanka. Getachew Reda, afhayeenka Tigray oo la hadlay warbaahinta Reuters, ayaa sheegay inay ciidamadoodu gudaha u gali doonaan dalka la tariyay deegaanka Amxaarada si loo soo afjaro waxa ugu yeeray cadowga. Dhanka kale qoomiyadda Axmaarada ayaa is abaabulayso wacdna ku martay inay difaaci doonaan gobolka Raaya iyo Walqayd. Ciidamadooda gaarka ah iyo maleeshiyaadkooda ayaa heegan la geliyay waxaana lagu soo ururiyay Raaya iyo Walqayd si ay u difaacaan dhulka labada deegaan ee Amxaarada iyo Tigray isku hayaan ee gacantooda ku jirta. Hadda war ka soo baxay xisbiga barwaaqo laantiis Amxaarada ayaa lagaga hadlay hanjabaado ka soo yeedhay kooxda TPLF, waxayna ka hadleen hadal marar badan lagu soo celceliyo oo odhanaya xisaab ayaa Amxaaro iskugu keen laaban. Arrintan ayay ku macneeyeen mid guud ahaan shacabka Amxaarada dhigooda iyo hantidooda lagu xalaalsanayo, waxayna hadalladan kooxda TPLF ka soo yeedhay ku tilmaameen riyo maalmeed. Mar kale xisbiga barwaaqo ee laantiisa Amxaarada waxay sheegeen inay dhulka ay ku mursiyeen labada deegaan ay yihiin dhul Amxaaro loo halgami doono. Maraykanka ayaa ugu baaqay inay xabad joojinta halka dhinac ah ee dowladda Itoobiya ay ku dhawaaqday inay dhinacyada kalena aqbalaan. Dhanka kale ciidamada Eritrea ayaa guud ahaan xidhay xuduudda ay la wadaagaan gobolka Tigray. Ciidamada Eritrea ayaa tan iyo bishii November ee sanadkii tagay 2020 ku sugnaa waqooyiga Itoobiya, kuwaasi oo halkaasi ka geystay gabadhfal xuquuqul insaanka. Baarlamaanka Itoobiya ayaa kulankii maanta ku meelmariyay heshiis iskaashi militari ee lala galay dalalka Faransiiska iyo Talyaaniga. Wadamo ay kamid Maraykanka iyo Ingiriiska ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ugu baaqay in la isugu yimaado kulan degdeg ah oo looga arinsanayo xaaladda Itoobiya, gaar ahaan xiisada gobolka Tigray. Xalay fiidkii jabhadda TPLF ayaa sheegtay inay la wareegeen gabi ahaanba caasimadda gobolkaasi ee magaalada Maqala kadib markii ay magaalada isaga baxeen ciidamada militariga Itoobiya iyo maamulkii ku-meel gaarka ahaa ee gobolkaasi. Wax yar kadib dowladda dhexe ee federaalka ayaa ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac, waxayna xukuumadda Addis Ababa sheegtay inay u tanaasulayso shacabka Tigray oo ay colaadu saamaysay. Hase ahaatee kooxda TPLF ayaa ku gacan sayray xabad joojinta halka dhinac, waxayna sheegeen inay sii wadayaan dagaalka. Magaalada Jigjiga caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida waxaa maanta ka qabsoomay kulan lagaga arinsanayay amniga magaalada Jigjiga. Kulankan oo uu shir gudoomiyay hogaanka nabadgelyada Xuseen Qaasim ayaa waxaa qayb ka ahaa qaybaha kala duwan ee bulshada. Kulankan waxaa kaloo ka soo qayb galay komishineerka GDS Maxamed Yare iyo maayarka magaalada. Kulankan ayaa waxaa diiradda lagu saarayay sidii loo adkeyn lahaa nabadgelyada caasimadda